sanad walba waxaa 12 bisha Janaayo guud ahaan laga xusaa deegaanada maamulka SSC Khaatumo sanad guuradii ka soo wareegtay xilligii dhidibada loo taagay maamulkan waxaana maanta si weyn lagu xusay degmada Boocame ka tirsan gobolka Sool waxaana sanadkan uga duwan tahay sanadadii hore la xusi jiray maalintan in shacabka degmada Boocame iyo guud ahaan gobolka Sool ay yihiin shacab maanta leh maamul rasmi ah oo ka hana qaaday guud ahaan degmooyinka iyo gobolada SSC xaflad lagu weyneynayo maalintan ayaa waxa ka dhacday hoolkii hore loogu onkay shirarkii dhidibada loogu taagay in maamulka Khaatumo maanta noqdo mid halkan soo gaara waxaana munaasabada lagu weynayo maalintan ka soo qayb galay madaxda sare oo ka socota maamulka SSC Khaatumo iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada taariikhda iyo laha magaca dheer ruux la saana iyo dhaladkii tale taariikhda iyo laha magaca dheer ruux la saana iyo dhaladkii tale مسار بوعمي حط النجدة هي الدنيا سلام السسيد سلام كليا وكلام وكسلام يا مدحنا نوتيمي حلبانك أقاسمها دليرة كلا صعوته وحن كسلام يا سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كلا سلام يا صحافة دليرة هوينك عيدنك خاتمه وهلكن ka soo qayb galay xafladda iyaguna waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu ilaahay baa mahad iyo shukr iska leh ilaahay baa mahad iska leh halka maanta isugu keenay xafladdeennii sanad guuradii Khaatumo 2024 bisha 12keedii aad iyo aad baan u soo dhaweynaa aad baan ugu dabaaldegnay si farxad iyo nidaam leh baan u dhignay haddaanu degmada Boocame oo aan kaliya laabaan u dhignay Khaatumo aan soo dhaweynaa waa guuleysatay ilaahay ha guuleeyo ilaahay idankiis guul sare iyo maalin afraadna waxaan u dabaaldegnay madaxweynaheena Puntland iyo kan maxaan ku sheegay madaxweynaha ku-xigeenka baan u dabaaldegnay sababtoo ah waa laba mataana SSC iyo Puntland waa laba mataano walaala waa midig iyo bidix weeye alxamdulillaah rabbil caalamiin iyagana daraatii horse u dabaaldegnay oo farxadeedana ugu dabaaldegnay soo dhaweyn maantana Khaatumo aan u dabaaldegnay sanad guuradeedii ilaahay waxaynu ka baryaynaa rabbiga boqorka Khaatumo inay noqoto guul iyo gacan sare inay noqoto ilaahay ma ka baryaynaa ilaahay inoo gargaaro ilaahay idankii ilaahay ciidankeena inoo barakeeyo inagu meersan oo cadawga inaga ilaalinaya baanu ilaahay ka baryaynaa ilaahay bilada ka ilaaliyo ilaahay idankiis haddaanu nahay hooyooyinka iyo dhalinyarada Boocame aad baan ugu qanacsannahay maamulka iyaga wanaagsan oo sharafta leh iyo waqtiga nooga timi oo sharafta leh waxaanu doonaynaa in wax qabadkuna soo gaaro oo maamul dajintuna soo gaarto oo madaxduna soo gaarto isimada waa u mahadnaqaynaa madaxdayada waa u mahadnaqaynaa ilaahay garabkiina ha galo waa maalin farxad leh degmada Boocame inta hadda la ogyahay waa magaaladii ugu horeysay oo laga xusay aasaaskii 12 Janaayo 2012 aasaaskii Khaatumo ee lagu aasaasay degmada taariikhiga ee Taleex meesha laga xusay maanta waa magaalada Boocame ugu horeysay inta ognahay aad baan markaa u faraxsanahay runtii inaan ka mid noqono dadkii ka soo qayb galay runtii farxad bay maaragtay noo tahay aad baan idinku mahadcelinaynaa reer Boocame sida qiimaha leh qaayaha leh sharafta leh ee aad maaragtay u xusteen maalinkan weyn ee ahaa markii horeysay ee la asaaso maamulkii Khaatumo isaga ayaana gundhig u ahaa in hadda aynu maaragtay isticmaalno magaca SSC Khaatumo waxa ka horeeyay asaaskii SSC oo isaguna aad xasuustaan ugu asaasay magaalada Nairobi sidoo kale waxaad ogtihiin in 6 February 2022 la asaasay maamulkeena curdinka ah ee SSC Khaatumo isagoo ka duulay labadii magac ee ka horeeyay ee ahaa SSC iyo Khaatumo isku xigay runtii sidaad ogtihiin maamulka SSC waa maamulka ugu qaalisan ee Soomaali dhexdeeda ka jira sababtoo ah waxa u nafwaayay dhalinyaro aan curan oo aad garanaysaan oo 20 jir u badan
sidoo kale waxaa dhagaxa u tuuray oo bilowgii bilaabay dhallinyaro yaryar oo 5 ilaa 25 inta u dhaxaysa ah baa bilaabay halganka bilowgiisii. dhallinyarada marka iska leh waa idinku bishaaraynaynaa in maamulka la sameeyey uu ahaa maamulkii dhallinyaradu ay bilowday ee ay dhagaxa u tuurtay ee ku xigtay inay maaragtay xabadda u ridaan. sidaa awgeed maamulka dhallinyarada leh waxaa la rabaa inay ilaashataan inaa maaragtay ka celisaan cadowga iyo wax magaratada. maamulku waa maamulkiina, waa kii aad u dhimateen. si fiican u ilaashada. odayaasha idinkaa ka xiga maamulka cidda ugu xaqle waa dhallinyarada. insha allah waxaan filaynaa inay maamulku magaalada yimaado dhammaan adeegyadii bulshada ka qayb qaato. ugu horraysa waxbarashadu, caafimaadka, biyaha, dhiirigelinta dhallinyarada, dhiirigelinta haweenka, dhammaan yani maamulku waa idinku soo wajahan yahay. u diyaar garooba. isaga ayaa leedihin soomaaliya cid kasta maamul bay leedahay. innaga maamulkeenna waa kee? waa SSC Khaatumo. bacda salaan waxaanu salaantaa lamida aanu idinku salaamano. salaan lamida waxaanu idinka wadnaa madaxweynaha SSC Khaatumo cabdilqaadir axmed cali firdhiye iyo dhammaan qaybaha dawladda ee kala duwan. waxaanu idinka wadnaa salaan hambalyo ah baanu idinka wadnaa iyo bogaadin ah baanu ayagana idinka wadnaa. waxaanu kale oo runtii aad iyo aad u bogaadinaynaa xuskan taariikhiga ah ee maalinta ku beegan dhismihii maamulka SSC Khaatumo oo ay ka soo wareegtay 12 sano xilli ku aadan ay ka soo wareegtay. baanu idinka mahadcelinaynaa xafladda fiican ee aad u qabateen. waa idinku bogaadinaynaa. waxaan aad iyo runtii ugu bogaadinaynaa dadkii soo aasaasay, hooyooyinka, dhallinyarada, bulshada qaybaheeda kala duwan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaanu kale oo runtii ayagana aanu xusannaa degmada Boocame. waa tee degmada Boocame? degmada Boocame waxa weeyaan waa meeshii ay ka bilaabatay hindisaha iyo damaca SSC Khaatumo. waxaa lagu qabtay shirkii Boocame 1 baa lagu qabtay. waxaa lagu qabtay Boocame 2 shirkii loo jiray. waxaa lagu qabtay Boocame 3. intaasina waxay ahaayeen hindisihii iyo damacii lagu maamulayey SSC Khaatumo. dadkii intaa gobasha dhigayey ee gurigooda la imaanayey ee diyaarinayey ee u taagnaa dhismaha inay hirgasho oo ilaa hadda xafladda u dhigaya oo garab taagan waa dadka bulshada shacabka ee degmada Boocame. intii ay ka soo waaday ee loo taagay dhidibada loo taagay Khaatumo oo Khaatumo la dhisay ilaa iyo hadda dhismihii 12 sano wuxuu ka babanayay calanka SSC Khaatumo. wuxuu ka babanayay degmada Boocame. waa degmada koowaad ee ilaa xilligaa ilaa hadda uu ka babanayo calanka SSC Khaatumo. waa degmada uu ka bilowmay halganka hadda taagan 28kii bishii 12 2022 waxaa halkan ku dhaawacmay oo markii ay Somaliland dabacday inay sanduuqyadeedii tuugada ah soo geliso waxaa ku dhaawacmay oo ku burburay shacab dad halka jooga iyo dad maqanba. waxaa ka mid ahaa caaway Mustafa Sotan مصطفى خضر موسى حاج خليفة وحو أها 12 بشي 12
dadkii diiday inay somalilan ka dhigato halkan ee doorasho ka qabsato wuxuu ahaa dadkii u dhaawacmay waxaa kaloo ka mid ahaa mustafa dhooge baa ka mid ahaa isna oo haddeer goobta ka maqan oo aan jeclaan lahaa inuu garabka iga taagan yahay waxay ahaayeen kuwii u dhaawacmay bay ahaayeen waxaan xasuustaa garabkii waxaan ugu yimi markii la dhaawacay manhal baan ugu yimi isagoo dhaawaca markaan ku idhi iska warran wuxuu yidhi mar haddii somalilan boocama ay ka soo baxday waan caafimaad qabaa halganku wuxuu ka bilowmay degmada boocame 28 bishii 12aad 2022 waa degmadii ugu horeysay oo somalilan loogu awood sheegto oo ay xoogga kaga baxday ilaahay fadligiis ilaahay baa suurtogeliyey dadkii suurtogeliyeen waxay ahaayeen dadkan degmada reer boocame aad iyo aad baad mahadsan tihiin waxaa kale oo isna haddeer idin soo salaamaya oo khadka ku jira guddoomiyihii baarlamanka jaamac yaasiin warsame iyo dhammaan xildhibaanada kala duwan madaxdiinnuna waa idin maqlaysaa waxaa laga dabaaldegay maanta waa deegaanada boocame keliya runtii waxaan rajaynaynaa madaxweynihiina waa idiin imaan doonaa insha allah markuu idin daawado aad iyo aad baan u sheegna insha allahu laba qodobuun baan ka hadlayaa midu waa dadkii naga geeriyooday halganka ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha u boogadhiyo waxaa la rabaa reer boocamow taariikhdiina ina aruursataan dadkuu ka mid ahaa korneyl sancadde ee halgamaa bashiir mustalow cali inaad boorarka ku carartaan ay ka dhex muuqdaan degmada baa la rabaa haddii alla idmo taariikh weyn baad ku leedihiin halganka waxaan u mahadcelinayaa dhammaan madaxda nooga timi dowladda SC Khaatumo oo halkaa taraa u soo galay inay dadkooda la qaataan farxadda dabaaldega maamulka waxaan sidoo kale halka uga ducaynayaa shahaadadii nagaga dhimatay xoreynta magaalada Laascaanood mahadda ugu badan waxaan siinayaa geesiyaasha noo taagan dhaxamaha ee difaaca noogu jira si ay naftayada iyo dalkayaga u difaacaan maamul goboleedkeena Khaatumo aad baan ugu faraxsanahay waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada haweenka maamulka odayaasha dhammaantood siday u soo diyaariyeen xafladan quruxda badan ee lagu taageerayo ama lagu xusayo maalintii dhidibada loo aasaasay maamul goboleedka Khaatumo ee ahayd 2012 caasimadii ku meel gaarka ahaydna ay ahayd degmada taariikhiga ee Taleex waqti amin gaabin baynu joognaa waxaanu soo dhaweynaynaa wufuudda inooga timi Laascaanood oo ugu horeeyo xildhibaan Cabdisaaq agaasime Cabdulqaadir iyo dhammaan wufuudda la socotay aad baan idiin soo dhaweynaynaa insha allah fariinta aad naga qaadasaan waxay tahay bulshada waa dhegaysanaysaan maamulka waa la garab taagan yahay hadday hab difaac noqoto iyo hadday noqoto mid horumarba degmada Boocame aad bay u soo dhaweynaysaa iyo xildhibaanada waxaan halkan ugu marnayaa fariin ah Boocame waxay u baahan tahay in la soo gaarsiiyo maamul daadejin waxaan leeyahay Boocame waxay ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn ee SC Khaatumo degmooyinka ugu waaweyn waxaan codsanaynaa inay noqoto gobol noqoto waan codsanaynaa ma yeelano in degmooyinka yaryar oo sool hoos taga in Boocame lala simo ma yeelano maamul toddoba cishaan qabaana inay ku timaado degmada Boocame iyadoo wadata guddoomiyaha degmada Boocame iyadoo wadata maamulkeeda dhammaystiran iyadoo aan doonayno waxaan diyaar u nahay inaanu cashuurta qaadno inaanu cashuurta diyaar u nahay bixinno inaanu wax kasta oo SC Khaatumo lagu garab istaagayo inaanu diyaar u nahay baan u sheegaynaa runtii deegaankeenu waa deegaanada SC ugu waaweyn haddana iyadoo saa tahay dawladdiina uma iman taana dawladda waxaa codsigaas aad iyo aad ugu diranaa inay noo yimaadaan dawladda annagoo
degmada Buucame waa degmo aad iyo aad u weyn waxa ka dhisan dad badan baa jooga marka waxaa loo baahan yahay dawladda inay timaado dayatona waa salaam iyo wasalaam calaykum